بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا سوماليد ميلاد جوجتان بإلهي سبحانه وتعالى دي كوان ما يالو عدي دبنبك الله كقادو عدي دن لا الله وفي انت بهن الله ديقو انت بوكتا الله بوكسيو انتي دمتي الله نحريستو واردينتين الله نحريستو أننا الله نوغدو نحريستو dalkeeni ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo dowladnimadaba haynoo badbaadiyo. maanta laba qiso oo la yaab leh baan ka hadlayaa. qisada koowaad, waxaan arkay dagaalyahano ka socda Leopolis oo ku tumanaya oo ku istaagaya oo ku dhaantaynaya calanka tawxiidku ku qoran yahay. masaladaasi waa meel ka dhac diineed, waa gaf islaamiya, waa arrin aan anigu inta badan cudurdaar baa loo raadiyaa qofka. iltamis liakhiika 70 cudran fain lam tajid faqul lacala lahu cudran laa acrifuhu. u raadi walaalka cudurdaar iyo excuse 70 jeer. hadday kaa dhammaato waxaad tiraahdaa waxaa laga yaabaa inuu cudurdaar leeyahay anaanse garanayn. cumar bin khataab qowl uu leeyahay oo aada xakiim u ah ayuu ahaa. qofka muslimka xusnu dhanni bilmuslimiin waajib laysku leeyahay, xuquuq laysku leeyahay ka mid tahay. waxaan dhanniyayaa u malaynayaa anuu malaha u qurxinaya inay jahli kaga jiraan. kow, qadiyadda ay sameeyeen. labo, inaysan qalbiyan ka ahayn ihaano ay ihaaneynayaan calanka waxa ku qoran, ee ay tahay colaadii iyo ciilkii ay u qabeen al-shabaab oo meesha la maray. kelimaadka meesha ku qoran qofkii ku istaaga isagoo qasdan u kasaya waa kaafir murtad khaarij can millat alislaam wey. waa qof gaaloobay oo diinta islaamka ka baxay. qofka ilaahay magaciisa iyo nebi maxamed magaciisa sala allahu alayh waali wasalam ihaanatan ugu istaaga, inta dhulka dhiga ku istaaga, qof diinta ka baxay wey oo gaaloobay. u malayn maayo marka qasadkooda inuu ahaa inay ilaahay iyo nebi maxamed sal alla ly slam midna wax yeelaan oo ihaaneeyaan. laakiin ujeedkoodu uu ahaa waa al-shabaab baan ka adkaanay oo calankoodiina dhulkaan dhignay. laakiin calanka waxa ku qoran aysan fahamsanayn ama aysan garanayn ama aysan dareensanayn ama aysan markaa ku baraarugsanayn. anoo malaha u qurxinaya. haddii ay markaa ka tahay ihaano waa gaf. haddii ay khalad ka dhacay tahayna waa gaf kale. hadday ihaano ka tahay waa gaalnimo. hadday khalad ka dhacay tahayna ilaahayna ha uga toobad keeneen. intii ficilkaas samaysay iyo intii ku kaalmaysay iyo midka leh ku istaagkan leh baa ugu khariban. haddii uu qasdan ula jeedo inta aan sheegay oo ah ihaanada ilaahay iyo rasuulkiisa magacooda lagu dul istaagayo, hadda wuu gaaloobaya. isagaa la rabaa marka inuu toobad keeno, diinta kusoo laabto oo ilaahay u toobad keeno. ma garanaysaa, kana noqdo wixii uu sameeyo ficilka iyagoo dhan. ficilkaas ficil la yaab lo ah. in al-shabaab la laayo oo layska dhacsho oo ay dhaalimiin yihiin, diinta islaamkana aanay haba yaraatee matali karin, shuqulna kulahayn manhajkii rasuulka sala allahu alayh waali wasalam, calankaas tawxiidkana aysan matali karin. waa kelmadaasi waa muwaafiq. waa kelmad muwaafaq ah oo laysku waafaqsan yahan cidina cid kaga soo horjeedin. soomaalidu meelay joogtaba ay isku waafaqsan tahay oo muslimiinta ah. wa ahlu maka adraa bishicaabiha. annagaa reer soomaali islaa, annagaa naqaan waxay yihiin. nama matalaan, diinna ma wadaan. gangs isbiirsaday oo tuuga ah oo dadka baada oo canshuur qaada oo xoog dadka kaga qaata waxay rabaan addoonsadana weeye. kuwa marka qadiyadooda in layska dhacsho, meel layska saaro, khawaarij ah, manhajkii ibaadiyada wata iyo asaariqada in layska dhacsho waa masaladiina. qodobkaas halkaasaan dhigaya. laakiin in calanka tawxiidka sidaa loola dhaqmo, laba calan buu nabigu lahaan jiray sal alla ly slam, kaa madow oo tawxiidku ku qoran yahay iyo mid cad oo tawxiidku ku qoran yahay. lama ihaaneyn karo ilaahay kelimaadkiisa sala allahu alayh wasalam, nabiga maxamed sal alla ly slam magaciisa midna lama ihaaneyn karo. lafduljalaala ku qornaa calanka dhulka la dhigayay. marka waa inaad kor u qaadaan. ciidamada si guud soomaaliyeed waxaan ugu dardaarmayaa, nimankaas dagaalka aad la leedahay diinta ha la gelin. diinta shuqulkuma ay laha, mana matalaan. masalada labaad oo aan ka hadlaya oo la yaab kale, runtii qiso la yaab le wey. 10 cisho oo dib loo dhigay baarlamaanka, maxaa loola jeedaa? maxaa sababay? qodobka ugu weyn, 2 qodob baa ugu muhiimsan, ama 3 qodobba. 2 qodob waxa weeye qodobka
yaa noqonaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka buuq badan baa ka taagan waxaa ka taagan tartan aada u tiro badan inta qofoo u tartamaysa iyo waxa ay kala yihiin iyo waa sheegi doonaa qodobka labaad aadan madoobe oo maalin dhaweyd shiriyey xildhibaanadii kasoo jeeday beelaha koonfur galbeed oo muruq iyo cudud muujinayay isagana buuq baa ka taagan dhankiisa oo wuxuu rabaa inuu awood ku yeesho doorashada wasiirada beelahaas matali doona iyo kuraasta ay qaadan doonaan inuu wax ku yeesho oo wax laga weydiiyo isagoo weliba ku matalaya sida la sheegay tiimkiisa sheekh shariif waxaan xog ku helayaa inuu heshiis markaa kadib ah uu jiro waxaan xog kale ku helayaa in loo ballan qaaday inuu qaadka lacagtiisa wax ka qaadan doono marka hawshiisu way fududaan doontaa hawsha adag oo kulul hadda waxa weeye yaa isku haystaa ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaruhuuse ma siin doonaa rag dhowra oo u tartamaya oo reer nabad iyo nolola ma siin doonaa maxayse kala yihiin dhowr qodob baan sheegaya maalinood waxaan arkay dad ka sheekeynaya mahdi guuleed ra-iisul wasaarihii ku-xigeenkii hore haddana weli ah inuu khiyaameeyey ballantiina uga baxay tiimkiisii nabad iyo nolol arrintaasi waa xaqiiq wey way dhacday ra-iisul wasaare ku-xigeenku dhowr kitaab buu maray oo kala duwan waxaa ii caddaatay 5 cisho doorashada ka hor inuu kitaab maray kitaabkaasna uu maray sheekh shariif isagoo kitaab hore kula jiray tiim farmaajo oo isagu kitaabka weliba keensaday oo dalbaday isagoo rag wata oo kitaab wata inuu ula yimi oo uu yiri waxaan rabaa inaan isdhaarsanno oo aan maaragtay mucaahadadeena aynu cusboonaysiino ballanteena kitaabkaas iyadoo lagu wada jiro ayuu 5 cisho ka hor doorashadu intaysan dhicin kitaab maray kitaabkaas wuxuu la maray oo la galay ballanta sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore roundkii koowaad markuu dhammaaday oo roundkii labaad loo gudbayey oo shariif oo halkaa ku haray shariif waa kaxeeyey mahdi guuleed habeenkiina dhaqaale xoog laa u yimi baa la yiri ka horreeyey mahdi buu kaxeeyey xasan sheikh buu u geeyey oo qol ku jira ninkan ku wareeji ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisiina bannaanka u dhig qodobkaas halkaasaa heshiiskaa lagu qaata xasan sheekh maxamuud marka ballan wuxuu kula jiraa mahdi guuleed inuu siiyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka halkaa lagu ballamay laakiin ballamihii halkaa ka dhacay intoodii badnayd ama kulligoodba ma shaqeyna waa laga baxayo deni iyo ra-iisul wasaarenimadiisii baa kamid ahayd oo sheekh shariif inuu ra-iisul wasaaraha keensadaa kamid ahayd oo khayra inuu keensadaa kamid ahayd oo ma garanaysaa waxaasoo dhan waa laga baxay mahdi markaasuu inta ka tegey oo raggiisii u tegey rag 20 iyo xoogaaya oo uu u geeyey sheekh shariif oo yiri raggaasaan hayaa buu wuxuu ku yiri farmaajo wuu haray waxaynu aadaynaa xasan sheekh baynu arrinteenu wareegsan farmaajo ma soo baxayo markaasaa raggii rag ka mid ah oo ay ka mid ahaayeen gudoomiye ku-xigeenkii hore axmed cawad oo ka mid ahaa cabdalla xildhibaan cabdalla iyo kuwo kaloo badan baa waxay ku yidhaahdeen qaarkood war ra-iisul wasaare sotan kitaab marnay oo dhaaranay oo aynu isdhaarsanay oo ballantu ay ahayd inaynu xisbi nahay oo xisbigaas wuxuu baxo aynu baxno oo see wuxuu jiraan farmaajo wuu haray buu yiri mana soo baxaye aynu qaadano dadka kale aan kala dooranno oo xasan sheikh baa rajo fiican isaga aan dooranno uu soo baxay oo wuxuu u yimi sida aan xogta ku helay farmaajo u yimi wuxuu ku yiri madaxweyne soo ma aadan harin madaxweyne wuxuu ku yiri baa laygu yiri see u haray adkaysaniyo ilaa laastigaynu soconayna haddii layna ka adkaadana finalkan gaarayna haddii layna ka adkaan waayana oo aan guulaysanana labada jeerba finalkan tegaynaaye adkayso waxaa la arkayey oo sawiradeedii la wareejinayey isagoo xasan sheikh
dhinaciisa fadhiya farmaajo iyo xasan sheekh watay isku xigeen danina ku xigay booskii dani oo midhaam soo sheegay meelaha aaday buu ku fadhiyey oo dhegta wax ugu sheegay sawirkaasa la wareejinaya qadiyadaas marka way dhacday anaa hubinaya dadka warkaa sheegaya waa dad xogta dhabta ah helay waa runtood laakiin waxaysan ogeyn baa jira ra-iisul wasaare ku-xigeenku madaxweynihii buu u tegey kadib doorashadii kadib ayuu u tegay madaxweynihii hore farmaajo waa la heshiiyey waa la iscafiyey xalay dhalay baa laga noqday sheekadaas halkaasi ku dhammaatay doorashadana way dhacdaa in xaggii xagga loo kala guuro ma ahayn runtii inuu ballanti ka baxo isagoo ballan ku jirana mid kala galo laba kitaab oo qur-aan uu maro ma ahayn wax fiican ma ahayn mana ku fiicna siyaasadda isbedbedelku go-aankaa fiican laakiin ninkaasi nin col ah maaha ha laga daayo mushkilada ha laga daayo taas waase run oo waa xaqiiq inuu isbedelay ragga ayagoo isaga ka cararaya ku jiritaanka uu ku jiro nabad iyo nolol uga baxay nabad iyo nolol oo rabay iyaguna kursigan inay helaan waxaa ka mid a laba nin waxaa la yidhaha xildhibaan biixi ninna waxaa la yidhaahdaa xildhibaan saalax oo hadda senator ah labadaa nin maadaama ay qoondo hoose iyo qeyb isla yihiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka markii horena isagu uu iyaga magaranaysa ay isla wateen isku mawqif ahaayeen haddana ay labaduba rabeen inay iyagu rabaanna inay noqdaan ku-xigeenka booskiisii ay ku qabsadaan haddii midkood helo kuwa kale wax heli mayaan marka arrintaa darteed bay uga tageen nimankaasi nabad iyo nolol waa biixi iyo senator saalax biixi hadda ka hor xasan sheekh maxamuud 2016 ballan buu la galay xasan sheekh maxamuud baa soo dhisay doorashadu markay dhacaysay uu farmaajo u wareegay isagoo raadinaya opportunitygiisu waxay ahayd iyo ballantii uu la galay tiam farmaajo waxay ahayd haddii laygala tashanayo ninka noqon doona dp-ga deputyga ku-xigeenka prime ministerka waan yeelayaa kow wasiirka reerka yagana haddii laygala tashanayo waan keenaya ragna waa wataa arrintaas waa lagu heshiiyey isaguna waa ka soo baxay ballantii iyaguna way uga soo baxeen isagaa mahdi guuleed iyo wasiir saalaxba isagaa keenay isagaa soo barbos gareeyey hadda wuxuu kaga tegey haddii aanan helayn oo mahdi uu meesha joogayo oo aanan anigu mahdi bedeli karin marka ma rabo bas wey anigu hadda waxaan rabaa inaan ra-iisul wasaare ku-xigeen noqdo saalaxna way israaceen saalax ciladiisu xagga senatarnimadana way ku jirtay markii isaga iyo nin kaloo nabad iyo nolol ay tartameen tiimkii nabad iyo nolol iyo taageerayaashii nabad iyo nolol ay ku kala qaybsameen labadooda halkaa colaad baa ka raacday biixi buu raacay toosu raacay qadiyadan marka labadaa ninba waxay u tageen biixi wuxuu u tagay khayre iyagoo isla socda saalax iyo hadda doorashadii ahayd waxay u tageen khayre wuxuu nimayo idinma aamini karoho niman ballanta ka baxbaxaa tihiin waa ka tageen waxay u tageen waxay aadeen oo ay u galeen iyagoo ka raadinaya maadaama ay nabad iyo nolol kasoo tageenoo mahdi fadhiyo meel kale raadinaya waxay u tageen xasan sheekh maxamuud markii shariifkuna waa diiday sidaasoo kale maadaama uu mahdi kula jiray ballan iyaga waa diiday nabad iyo nololna waxay kaga tageen mahdi hoosna shariif wuxuu ka ogaa inuu mahdi ballan kula jiro ayagana waa ka diiday uma uu sheegin laakiin inay mahdi iswataan wuu ka diiday wuxuu yidhi dhaaf waxay u tageen xasan sheekh halkaasi ku dhammaadeen marka booskaas kursigaas saddexdaa nin oo isku jiifo hoose ah waa isku haystaan waxaa kaloo isaguna ku jira marka saddexdaa nin labadaa nin weli ma maqal saalax iyo biixi inay tiimkii reer farmaajo ay heshiiyeen laakiin colaadi ma jirto waa dad asxaaba doorashadana waa la kala guurguuraa waa shay caadiya shay waxa weeye caadi o normala ballantu way fiicanta in la adkeeyo la ilaaliyo ninkii ku dhiso oo kusoo saara inaa ilaalisidoo adna aad dhistid waa sharaf laakiin not big deal qodobka qofka ku xigaa waa dubbe wasiir dubbe senator dubbe hadda ah
isaguna wuxuu raadinayaa inuu noqdo ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha. Dube waxaa lagu xasuustaa isagoo aad u soo caanbaxay oo maareeye bedelay, ku soo caanbaxay aftahannimo iyo codkarnimo iyo culays. runtii professor Dube aad iyo aad baa loogu hanweynaa. anigu ragga aadka u jecel baan ka mid ah, warkiisana waa ku raaxaystaa. xoogaa wuxuu ku fashilmay qadiyadii SNTV iyo radio Muqdisho, waana iska garan karaa baqdin baa jirtay, laakiin inuu adkaysta yahay meesha rabtaa ka dhacdo inuu adkaysta yahay mushkilase ma jirto isagana. maareeye tiim farmaajo ahaa waagii hore, tiim cabdi xaashib oo ahaa 2016 wuxuu la socday ninkii la oran jiray, hadda waa tiim cabdi xaashiye, wuxuu la socday xasan sheekh maxamuud. ninkaasi ballantiisii ugama bixin. xasan sheekh maxamuud ballantii ugama bixin. ballantana sidiisaba waxaa la yidhi waa ku fiican yahay. nabadii nolol 3 sano wasiirka ah. mahdi bay isqabteen, isagiiyo mahdi in la kala doortay noqotay. isagiiyo mahdi baa la qaatay maadaama uu DP-gi ahaa, DPM-ki ahaa, deputy prime ministerka ahaa. arrintaas marka waxay ku keentay xoogaa inuu cillad ka qaado qoladii uu la joogay oo ahayd nabadii nolol, oo uu 3 sano wasiirka ahaa. markii wasiirnimadii laga qaaday dee khasab bay noqotay labadooda mid inuu baxo. isagaa sahlanaaday. ninkaasi nimankaa wuxuu kaga tegey colaadaas, laakiin mushkilo kale ma jirto isagana. waxaa ku soo haray cawad nin siyaasadda lagu yaqaan maha, waa nin dahabshiil ka tirsan. ballamihiisa lama garan karo inuu ballanta ka bixi doono iyo inuu ballanta ilaalin doono. nin wada shaqayn leh iyo inuusan noqon doonin ma naqaan. he's never tested. ninkaas weli lama test garayn, laakiin raggaas saasay kale yihiin. waxaa ii muuqataa haddii ra-iisul wasaaruhu nimankaas aan soo sheego kore, ninkan dambe ugu dambeeya dahabshiil aan ahayn, ragga kore ah uu ninka qaato oo uusan cid kale aadin, in ay jiri karto dowladdii hore inay dad kala joogaan dowladda cusub oo xubna kaga jiraan. waana soo dhaweynaynaa. waxaa loo baahan yahay maadaama dowladdii hore aysan mucaarad ahayn, madaxweynihii hore aysan mucaarad ahayn, xubnihiisiina uu kula taliyay inaysan mucaarad noqon, in la soo dhaweeyo dowladda lagu soo daro oo ay soo dhawaadaan. waa arrin fiican. waxay keeni kartaa taxaaluf siyaasadeed bay keeni kartaa, in laysu soo dhawaaday keeni kartaa. ra-iisul wasaare mahdi haddii mar kale ra-iisul wasaare ku-xigeen mahdi ama biixi ama saalax ama Dube, nin baa waxaa laga sheegay ragga oo dhan waa raggayga. raggaas oo dhan waa raggayga. nin oday oo baabuur hawd marayaa, baabuur wuxuu yidhi iqaada mudugtaas. markaasay waxay yidhaahdeen aan ku qaadne, yaa tahay horta sheeg, ma waxaa tahay SYL iyo Lego mise waxaa tahay Progress? markaasuu labaduba waa raggayga. isagoo ka baqaya inay ka tagaan, hadduu leega sheegto inay kuwii kale noqdaan oo ka tagaan, hadduu kuwa kale sheegtana inay kuwii kale noqdaan oo ka tagaan. buu yidhi labaduba waa raggayga, waa la qaaday. marka waxaan leenahay raggaas oo dhan waa raggayage, nin uun ka qaata, cidlaha nooga teginina. anigu intaasaan maanta odhanaya insha allahu tacaala. way jirtaa in la iskhiyaamiyey, rag badan oo ballanti ka baxay baa jira. wax badan baan sheegay, jabku meeshuu ka yimid aan sheegi doono. xabaddii ugu horreysay maadaama laygaga hormaray oo aan suuqa ku arkay oo Facebook aan ka arkay, baan u sheegay. mahdi guuleed baa ka mid ahaa dadkii ka baxay ballanta. ragga kalena waa sheegi doonaa insha allah markeeda iyo xilligeeda. khayr badan baa idiin rajeynaya. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.